hooyo Soomaaliyeed oo saan u dhibaataysan baa wax ahaaya mala ay maalin wax karsadaan oo mooska kaliya intay gogoystaan biyo ku karsadaan aan xalay ama caawa wax ay ku casheen ama isku quraacdaan aan jirin biyaha naga qaadeena baad male wax ilaahay abuuray aan haysana bacda baadka wax aan haysana male hoobiyo kale biyo baad wal kuriba wal ka karsana wal ka jiifana kolka aad hooyada Soomaaliyeed ee ilmada ka qubanaysa aad weydiisid waxa ku kalifay barakaca misana warcelin ay kaaga dhigto wax aadan ka jawaabi karin cidna uma maqna ceelna uma qodna alla ka sokow halin rooba dhacay oo dhibaato kor iyo hoos biyo ya dhacday meelan hooyin oon ku hooyin male meel oon istaagna male gadaal uma noqon karno waa cabsoonaynaa weydiimo iyo jawaabo ay bixinayaan la waraystayaasha barnaamijkan ee xog bile ayaad ku maqli doontaan gaar ahaan sooyaalkii wacanaa ee beeralayda koonfur galbeed أنا طول الوقت تومي توب جراحة لكجيدة بكارو مزجيدة كجرتي تومي سنة أفضل في دان يلي كجيدة ما نداء لكن شيء وأنا توم كوبينا اللي بيلان فديدي يوه هلو كارو مزجيدة بكارو كجران يبيلان يهم كتبان أما ما يديو كرته بعد إني لواي horumaradii laga sameeyay wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha ee dadka ku abtirsada deegaanadan la isku yiraahdo koonfur galbeed ayaan sidoo kale barnaamijka iyaga xog bile ku maqli doontaan waxaaynu ka sheekaysan doonaa waayihii wacanaa ee gobolada Baay Bakool iyo Shabeellaha Hoose tan adafadaas toolay dad ku dhan masleelayaan lanki ilaahay nasiibi oo nasiibay ka dhiyaga qaar ka mid ah dadkii ka soo jeeday deegaanadan koonfur galbeed waxa ay u dulqaadan waayeen dulmi aan xad lahayn saameynta foosha xun ee dulmigaas uu ku reebay goboladan wax soo saarkooda oo idil Soomaali wada kaanfin jiray waa tan keentay maanta saboolnimo aan dhammaad la saadaalin karin ay ku noolaadaan dhibka barakaca keena xilliga uu bilaabmay iyo waxa sababay kama marna inaan daaha ka rogno waayeelkii waayo joog ahaa inoo warama فأذاق الله لباس الجوع والخوف صوماليا إلهي سبحانه وتعالى إن اسكو صباحا لما أنتود هل ما لو طبكينا خاصة dadka deegaanka digil marflee cadur shukowdiyo hal isku fiiriyo sababtoo meet nabadgelyo darri jart yoo abuurahay siin hadalaaw siyeetun sanadkana kaw in ka tari kan saar kan siib sareeyo munusqaabo giila aray calanka hootiisa suruna ayartain fiiri dadin shokroore meelota warsidaaya karlan dareeran dawliyan bahanaaye wadaneeya dawliyan bahanaaye oy dhibaatada ay ku nool yihiin tusaale la kulan faquuq bulsho dhaqaal xumi nolol liidata xadgudub jinsi oo haweenkii Soomaaliyeed qiimaha badnaa ay la kulmaan mid ayay inoola hadleen koortayinka fadeedi kooni edimi kalidi hadana kamna kay hadana bajinay gal hadana koortayinka fadeedi kee kale hadana edimi kale namadaas edimi kale waa sidee xaaladda caafimaad ee barakacayaasha deegaanada koonfur galbeed marka Soomaaliya waxay ku baaba'day laba shayood ay ku baaba'een waxa way midna xabad ayaa leesay tan wuxuu dawooyinka dawladda baabis TBD kaliya lama ah wala taala dhamaan cudurrada bani'aadamka ka dhiyo waliba deegaanku kan ay ka fargaray korsada TBD dareenka ay dareemayaan shalay bacdama taajir ay ahaayeen haddana maanta lagu tilmaamo dadka danyarta ee duruufaha dalka ka jira intooda badan ay la kulmeen oo dhaqaalihii alla ku manaystay ay ka baahan yihiin kuwa qaranka maanta aynu harsanayno oo u soo halgamay ayaa ku dayacan duleedyada magaalada caasimadda ee Muqdisho maya akoomo jire warkaas meel ku xoore ninka adeege ninkaaga mooganta wala soo maraaye
waxaan rogrogi doonaa dhibka guud ee sababay iyo cidda ay faa'iido ugu jirto kama marna kooxda iyaduna khasaaraha ku sugan in aan hortagno oo aynu la hadalno waxaa barnaamijka iyaga xogbile idin horkeeni doonaa musuqmaasuq aawi shakhsiyaad beecmushtar ballaaran ka sameeyey xoolaha dadkani masaakiinta ah ee loogu talagalay haddii walaagii ha baxeen ilaahay khayrsiya deeqbiyaasha hangalan galeen ama NGO haadeen ama hay-ad haadeen walaagii i dadkii kale maamul hooseedka haadeen haddii walaagii ha galan galeen مثلا كاركي مايك قرونا $60 باك قرب $60 ونسومالي مايك مهما هذان اللان قذق أبو عشان كدراس waxaa iyana xusid mudan in ay jiraan kana howlgalaan deegaanadan ururo samafal ah oo isku xilqaamay inay caawiyaan dadkoodii dhibaataysan ururama beenaha musurta arlaade runtii hortooy beenahan dad oo ilaahay dartiis lehan kahi dalsho idad walan ka qobadayaan markii walan qobadowna markii waa igili bini aadam wal makiin qobadow walladad lawan ku suudina mayka noolada qora la in shakartum la ziidannakum ya ilaahay hadiisan in ku shukriidan siinmahan yani siin ziyaadiyeen waranaga hayid wax barasho faafinaysan ka soconaanay wax barasho maxaa la ilaahay horta ma aaminsana Dakar waxa isbeedana gobolada ka baxsan maamulka gacanta dawladda dhib iyo dheef waxa ay kala kulmaan dadkan duruufaha adag ku nool ayaan barnaamijka iyaga xogbile kaga hadli doonaa ayadoo weli dhambaalada beesha caalamka loo dirayana ay sii xoogaysanayaan waxay halkan baaq uga dirayaan hay'adaha gargaarka ama hay'adaha samafalka in si degdeg ah ay ugu gurmadaan ama wax looga qabto xaaladda bani'aadamnimo ee ka soo cusboonaatay deegaano ka tirsan degmada Xudur ee gobolka Bakool odayaashii dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanada indheergaradyada kuwooda loogu jecel yahay deegaanadan waa kuwa ayagiiba noqday kuwa isku mashquulsan hadba kala fikir duwanaansho siyaasadeed ku kala tegaya danihii guudna waxaa laga hormariyey danihii gaarka oo jufu weliba waxeeda ayay si gaar u xisaabtamaysaa lan walbo koonfur galbeedka tirsan may kala dardahmaane meelo ka qaloonta ka toosiyey kii wal dhaliilow haatooy dhaliilisto walla ka toosiyow un walba mal dhaliilow walihinin waxyaalaha 3 bilood ka dibowna dadka kan barakacyaalayn oo dadka kan qaxooti meelahan keegin gabdhogan meelaha leen kursudahay leen ka dhibaataysan may buwaa nidaam la'aan waa nidaamkiisii bilaawaday dabada haysada shacabku dawladdu haddii goob dib u jedin ay u samaysay dadkan barakacyaasha ma tahay mid ay ka warhayso barakacyaasheeda weejido tan ee dameer hata magalo kor dhibaatooyin badan jiraan markuu la faday ciidamadii militariga sheegada guutidii lixaad saysan ku warqabtan dadka jidka dadka ka dhamaayo ayadoo aynu ognahay dhibka jira awgii in la yareeyo lana baabi'iyo hay-adaha aan dawliga ahayn ee dhaqaalo badan ku soo qaata magaca horumarinta beeralayda Soomaaliya haddana aan mashruuc horumarineed ka samaynin dhanka beeraha xaalkooda muxuu noqonayaa waa kuma cidda dhaqan gelinaysa ama mas'uuliyadda qaadan karta alla ka sokow in dadkani la badbaadiyo weydiimahaas iyo kuwo kale ayaad barnaamijka iyaga dabagalka ee xogbile aad ka daawan doontaan telefishinka Janaawkay